maanta safar ayaan ahaa waxaan u socday magaalada Baraawe anigoo ah Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muudey gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waxaan u socday kursigii yaalay Baraawe inaan aado oo aan u tartamo waxaa dhacday maanta in airportka aadan cadal igu celiyo la diido inaan meesha ka raaco aniga staafkaygii aan u socday Baraawe diyaaradiina lagu amray la yiri ninkaas ma soo qaadi kartid xataa la isku dayay la yiri war afar qof oo odayaal la socday asaga hal la qaada la yiri hataa bataatan ba asaga hataa lama keeni karo meeshan ma imaan karo asaga aan ba ogolaan la yiri markaan weydiiyay qoladii shirkadda diyaaradaha waxay yiraahdeen amar ayaan la soo siiyay maamulka koonfur galbeed amarna soo siiyay qolada aviationka Baraawana waxay dhaheen haddaad soo qaadaan Baraawe amar la'aan diyaaradda waa soo ridaynaa ay inagu dhahanayeen waa arrin la yaab leh oo adduunka aanan ka jirin in la yiraahdo qof tartamayo ma tartami kartid inuu tartamo darteed diidil la qabal diidaa in la yiraahdo ma imaan karo in la yiraahdo safar uu geli lahaa xaq uu leeyahay sharcigu u sii la yiraahdo ma safri kartid arrintaas waxa waaye arrin meel ka dhac ah oo gif ah xuquuqda bani'aadamka uu qofku xaq u lahayn lagu xadgudbay inay tahay waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto iyo beesha caalamka intaba waxaan u sheegayaa xadgudubkaas inuu maanta igu dhacay sababta loo diidan yahay inaan meesha tagana ay tahay inaan u tartamo kursiga qabiila iskale qof iska malaha cid gaar kalena malaha qabiil kalena male marka kursigii qabiilkii lahaa inuu u tartamo la yiraahdo adiga ma tartami kartid nima anaga rabna ma ogin nin kale meesha uma tartami karo arrinka asaga dadka ka dambeeyana waa la ogyahay waa garan karnaa waana naqaanaa mana la isaga hari doono arrinka asaga mid la iskaga hari doonana ma aha xisaabteedana way jirtaa waana la xisaabtami doonaa haddii loo malaynayo hanjabaadii iyo guulguulkii handadaadii in ma aragtay dadka in lagu cabsiyo la rabo in wax looga harayo taas la iskaga mahari doono waana lagu xisaabtami doonaa maalinkeeda inay tegi doontaa waxaan u sheegayaa inaanan ahayn aniga qof la handadi karo qof la handadi karo loo hanjabi karo ma taqaan la guulguuli kari mihi aniga maxaa yeelay aniga wax aan raadinayo xuquuqdayda waaye ma ogey xuquuq bani aadan kale maaha wax aan raadinayo marka intaas waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed in nin kasta oo sama jecel inaan u sheegan rabaa inay maanta waxaas i qabsadeen sidaas ayaan rabaa inay idin sheegaan mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة جرائد من سداس أيوكو سابسين هاي ساس إن الأسرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته